السلام عليكم dhamaantiin kusoo dhawaada cashir kale oo aynu kaga hadli doono text fragen ama su'aalaha u baahan in lagu qoro. Su'aalo waxa jira fuurashaynka laga rabo inaad ku qorto oo aan ahayn kuwii ku nasiibid ahayd midkood ka doorada ahayd ama laba ama saddex kamida ama dhamaantood ay sax ahaayeen. Su'aalahan waxay kaga duwan yihiin adiga ayaa laga rabaa inaad meesha banaan buuxiso kuna buuxiso jawaabta ku habboon. Su'aalahan waxaan isku eegi doonaa sida ugu macquulsan ee loo turjumi karo inaga oo aan erey to erey u turjumayn laakiin macnaha guud ka soo qaadanayna. Ku soo dhawaada dhamaantiin. Su'aashan koowaad waxa la xiriirta cashirkii kan ka horeeyay aynu soo qaadanay kaasi oo ka hadlayay inner odds iyo outer odds. Markaas su'aashani waxayna leedahay parkinka outer odds ka ama meesha magaalada ka baxsan Andreas Kreuz kuna hore aynu soo qaadanay waa birta tareenka iyo baabuurta kala joojisa marka ay wadada iskaga gudbayaan ayaa la yiraahdaa Andreas Kreuz. Intee in leeg ayaad ku baarkimi kartaa gaarigaaga markaad outer odds ka joogto magaalada banaankeeda ah marka aad joogto intee in leeg ayaad ku baarkimi kartaa. Su'aashu macnaheedu guud waa noocaas. Jawaabta laga rabaana markasta xagga hore ay kasii muuqataa waa in aad ku sheegtaa mitir. Kilomitir kuma qorna, sentimitirna kuma qorna. Waa masaafada laga rabo inaad u jirsato ama aad gaarigaaga ku baarkinto intaasoo mitir baad sheegaysaa. Jawaabta su'aashana waxay noqonaysaa waxaan u jirsanayaa ama la ii ogol yahay gaariga ku baarkimo 50 mitir masaafo u jirta birta tareenka marka ay tahay magaalada banaankeega ama outer odds-ka. waana masaafada ugu yar ee aad u jirsan karto ama aad ku baarkimi karto gaarigaaga birta tareenka inta aan la gaarin. Su'aashana waa su'aal kale oo ku dhow ama u eg tii aynu hadda soo aragnay waana su'aal ah inner odds magaalada dhexdeeda birta tareenka ee ku taala intee in leeg ayaad u jirsanaysaa ama aad gaarigaaga ku baarkiman kartaa marka ay tahay magaalada dhexdeeda. Jawaabta su'aashana waxay noqonaysaa waxa la ii ogol yahay inaan 5 mitir meel u jirta birta tareenka ku baarkimo marka ay tahay inner odds-ka ama magaalada dhexdeeda. Su'aashan waa su'aal khusaysa xawaaraha ama speedka gaariga waxayna tahay muxuu yahay speedka ugu badan ee aad ku dhex mari karto ama aad ku socon karto magaalo dhexdeeda ama meel dad degan yihiin oo inner odds ah. sidii aynu casharadii hore ku soo qaadanay speedka ugu badan ee aad ku socon karto magaalo dhexdeed ama meel dad degan yihiin wuxuu noqonayaa 50 km/h 50 km saacadiiba. waana speedka ugu badan ama xawaaraha ugu badan ee aad ku dhex socon karto meel magaalo ah. Su'aashani waxayna leedahay labadan calaamadood ee noo muuqda midkee ayaa muujinaya miisaanka gaariga marka uu raran yahay ama culayskiisa guud. Jawaabtuna waxay noqonaysaa number 1 ama tan koowaad ee 5.5 ay ku qoran tahay. Calaamadaas labaadna waxay muujinaysaa sidii aynu casharadii hore ku soo qaadanay meeshan ma geli karo gaari El Cafe ah ama gaariyada xamuulka ah waa ka mamnuuc. wixiise El Cafe ka yar ee 3.5 tonnan ah u mari karaa ama gaariyada caadiga ah. Su'aashan waxay khusaysaa cashar aynu hore u soo qaadanay oo ku saabsanaa xisaabaadka ku jira fuurashaynka ama theory-ga waxayna leedahay waxaad socotaa dariiq aad u yar masaafada aragtidaaduna waa 50 mitir ama reactionis fake ayaa halka laga wadaa. markaas su'aashu waxay u dhacaysaa intee in leeg ayuu noqon karaa anhalt fake ugu badnaan. Jawaabta su'aashuna waxay noqonaysaa marka aad soo xisaabiso anhalt fake formuladii lagu helayay casharadii horena aynu ku soo qaadanay waxay noqonaysaa masaafada aragtida kala barkeega. anhalt fake mar walba waxa weeye
reactionis feega kala barhkiisa. Marka waxay noqonaysaa 50 mitir loo qaybiyey 2 waa 25. su-aashan waxay khusaysaa baabuurta waaweyn ama baabuurta xamuulka ah ee elka feega ah, waxayna tahay waqtigee ilaa waqtigee ayay ka mamnuuc tahay maalinta axadda iyo maalmaha fasaxa ah baabuurta waaweyn. saacadda ayaa lagaa rabaa, saacadda laga bilaabo ilaa saacadaas wax baabuurta waaweyn ama elka feega dariiqyada ma mari karaan ama kuma safri karaan. jawaabtuna waxay noqonaysaa laga bilaabo 12 habeenimo ama 6 saac habeenimo ama 0 ee maalinta axadda ah ilaa laga gaadhayo maalinta ku xigta 10 habeenimo ama 22 saac. lama ogola inay safraan ama dariiqyada maraan baabuurta waaweyn ee elka feega ah ama baabuurta xamuulka ah, marka laga reebo baabuurta waaweyn ee wada waxyaabaha muhiimka ah sida khudaarta, hilibka iyo waxyaabihii ay dadku aadka ugu baahan yihiin. su-aashan waxay tahay intee in leeg ayaa lagu ogol yahay inaad istaagto ama aad ku baarkinto meesha dariiqa ay dadku uga gudbaan dariiqa, ama Fußgänger Überweg ama Zebrastreifen, hadba midkii aad u taqaano. waa dariiqa cadcadaan kale ee looga gudbo wadada. dariiqaas ay dadku uga gudbaan dariiqa kale intee in leeg ayaa lagu ogol yahay xaggiisa hore inaad istaagto ama aad ku baarkinto gaadhiga. jawaabtuna waxay noqonaysaa waxaa lai ogol yahay inaan ku baarkimo masaafo u jirta 5 mitir oo xagga hore ah inaan gaadhiga ku baarkimo ama aan istaago. su-aashani maaha su-aal buuxi meelaha bannaan ah, laakiin waxaynu soo qaadanay maadaama aynu cashirkan si gaara uga hadlano outer orts iyo inner orts, waxyaabaha khuseeya ama waxyaabaha su-aalaha kaga jira. su-aashuna waxay ku saabsan tahay hoonka gaadhiga, sababta aynu u isticmaalno marka aynu outer ortska ku jirno ama meesha magaalada ka baxsan, waxyaabaha aynu u isticmaalno ama uu noo faa-iideeyo. 1 alles overhaul signal, in aan mataqaanay overhaul signal ku sameeyo on qofka ugu digo. alles roof session, inaan qof ku salaamo ama aan kula hadlo. alles fan signal, inaan digniin ku bixiyo. marka saddexdaa midkood ama laba mid kamid ah ayaa saxa. jawaabtuna waxay noqonaysaa ta koowaad iyo ta saddexaad oo ah in aad digniin bixiso oo aad ogeysiiso yacni inaad baabuurkan dhaafayso si uu kuugu tashado, iyo ta u dambeyso oo ah digniin. waxaa laga yaabaa inuu qof qalad gelayay ama waddo soo gelayay aad hoonka u garaacdo si uu kaaga istaago ama uu kuu ogaado inaad usoo dhowdahay. tan labaad ee ah inaad qof ku salaanto ama aad ugu baaqdo, taasi waa mamnuuc, lamana ogola magaalada banaankeeda iyo magaalada gudaheeda midkoodna. su-aashani waxay khusaysaa speedka ama xawaaraha ugu badan ee autobaanka gaadhiga uu ku mari karo ee warqadda baabuurka ku qoran. jawaabtuna waxay noqonaysaa 60 km/h, yacni 60 km/h ayaa ku qoran warqadda gaadhiga in ugu badnaan lagu maro autobaanka. kolley waa jawaab aydaan filayn in 60 kilomitir ugu badnaan loogu talagalay in gaadhiga lagu wado autobaanka, iyadoo aanay jirin baabuur autobaan socda oo 60 kilomitir ku socda haddii aanay jirin sabab ku kalifaysa, oo badanaa 60 kilomitir ka badan ay ku socdaan. kolley waa wax iska wareera, laakiin waa wax jira warqadaha baabuurkana ku qoran. systemka wada marista ee dalka Jarmalkuna saas uu ka duwan yahay, oo waxaad ku socon kartaa ilaa iyo inta aad wadi karta gaadhiga haddii aanay jirin calaamad kuu kalifaysa inaad hoos u dhigto speedkaaga. intaas waxay noogu dhan cashirkeennii koobnaa ee ku saabsanaa qaybo ka mid ah su-aalaha tiyooriga ah. haddii ay jiraan wax su-aal oo aad qabto waad nala wadaagi kartaan, commentiga hoose ayaad noogu soo qori kartaan. haddii aad ku cusub tahay kanaalka, fadlan subscribe lana wadaaga asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.